يودن xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeedo qabanqaabada kulamo iska soo horjeedo oo yeelanayaan xildhibaanada taageersan Professor Maxamed Sheekh Asmaan Jawaari iyo kuwii mooshinka ka gudbiyay ayaa xilligan ka soconayo hoteello ku yaala magaalada Muqdisho wararkii idaacadda kulmiye ay helayso ayaa sheegayo in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Asmaan Jawaari oo in ka badan 100 xildhibaan oo isaga taageersan uu ku casuumay xarunta Villa Hargeysa xildhibaanada qaarkood oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in salaada khudbada kadib ay u huleelayaan xarunta Villa Hargeysa oo ay kula balansan yihiin afayeenka golaha shacabka Maxamed Sheekh Asmaan Jawaari oo 14 bishan in ka badan 100 xildhibaan ay mooshin ka geeyeen ka oo xiisad siyaasadeed dhaliyay sidoo kale kulamo ay yeelanayaan xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyay Professor Maxamed Sheekh Asmaan Jawaari ayaa iyaguna waqtigan waxay ka soconayaan mid kamid ah hoteelada Muqdisho ka oo goorsii horeysay wariyaasha looga yeeray lamana oga natiijada ka soo bixi doonto kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada taageersan Professor Maxamed Sheekh Asmaan Jawaari iyo sidoo kale kuwii mooshinka ka gudbiyay